madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug oo shalay galinkii dambe soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa xalay hoygooda ku booqday madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre. Kulan gaar ah oo yeesheen mas'uuliyiinta ayaa waxa uu ahaa mid ku qatomay kala warqaadashada xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidii loo maareyn lahaa marxaladan kala guurka ee xilligan dalku uu marayo. Wararka kulanka laga helayo ayaa sidoo kale sheegaya in madaxweynaha Galmudug uu ka dalbaday madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarihii hore in xaaladda la dejiyo isla markaana si gaar ah looga wada hadlo shaqooyinkii maalmo ka hor dhacay. Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa hoygiisa magaalada Muqdisho ku booqday madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud, iyagoona yeeshay kulan gaar ah oo ay uga hadleen arrimo dhowr ah. Wararka kulankaasi laga helayo ayaa sheegaya in labada mas'uul ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka ee weli muranku ka taagan yahay iyo dejinta xaaladaha cakiran ee ka dhashay rabshadihii dhacay. Madaxweynaha Hirshabelle ayaa la sheegay inuu bilaabay doorkiisa ku aadan dhexdhexaadinta xaaladda taagan iyo sidii looga gudbi lahaa, iyadoo ay xusid mudan tahay in murashaxiinta ay maalintii shalay ahayd ku dhawaaqeen banaanbaxyo kale. Maalmo ka hor waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay shaqaaqooyin salka ku hayay dibadbaxyo nabadeed oo ay doonayeen inay ka dhigaan xubnaha midowga musharaxiinta magaalada Muqdisho. Ha yeeshee, ciidamo ka tirsan dowladda ayaa rasaas ku furay, sidoo kalena waxaa dhacay weerar lagu qaaday hotel Maida oo ay ku sugnaayeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Dowladda Qatar ayaa ka hadashay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo rabshadihii ugu dambeeyay ee maalmo ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho ee u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa taageersan midowga musharaxiinta. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Qatar ayaa waxaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda ka soo korortay Soomaaliya, iyagoona sheegay in loo baahan yahay in xal laga gaaro arrimaha soo cusboonaaday lana ilaaliyo nabadda. Qatar waxay madaxda Soomaalida ugu baaqday inay dejiyaan xaaladda kana hortagaan wax kasta oo sii hurin kara ama sii kordhin kara arrimaha jira, isla markaana la ilaaliyo rajada shacabka Soomaaliyeed ay qabaan. Sidoo kale, qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Qatar ayaa la sii raaciyay in khilaaf kasta oo jira lagu dhameeyo wada hadal nabadeed si loo gaaro heshiis wadajir ah lana ilaaliyo nabadda iyo deganaanshiyaha. Xiisadda siyaasadeed ayaa haatan u dhaxaysa dowladda federaalka ee waqtigeedu idlaaday iyo midowga musharaxiinta Soomaaliya kadib is-hurtaag dowladda ay ku sameysay banaanbax murashaxiinta, sidoo kalena lagu rasaaseeyay murashaxiin ay ka mid yihiin Xasan Cali Khayre, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo xubno kale oo ka tirsan midowga musharaxiinta oo doonayay in la dhigo dibadbaxaasi ballaaran. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in kiisas kala duwan oo intooda badan laga helay gobolka Banaadir ay diiwaan gelisay 48 saac ee la soo dhaafay kadib markii la baaray dad looga shakisan yahay inay qabaan cudurka Covid. Tirada dadka hubinta maray ayaa ah 1338 ruux guud ahaan dalka, waxaana xanuunka jirkooda laga helay 257 bukaan ah oo 255 ka mid ah ay ku sugan yihiin gobolka Banaadir, halka labada kale ee laga helay ay kala joogaan dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in kiisaska la diiwaan geliyay ee xanuunka Covid-19 ay muujinayaan soo laba kacleynta fayraska oo u baahan in taxadar dheeraad ah la sameeyo. Waxa ay sidoo kale soo jeediyeen inaanan la fududeysan kiisaska maadaama toddobaadyadii lasoo dhaafay koror uu ku yimid tirada dadka cudurka laga helay, dadka ka caafimaaday iyo kuwa u dhintay, sida ay hadalka u dhigtay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Tirada guud ee Covid diiwaan gashan Soomaaliya waa 5888 ruux, waxaana ka caafimaaday guud ahaan 3757 bukaan, halka ay u dhinteen dad gaaraya 194 ruux tan iyo bishii Maarso 2020 oo kiisaskii ugu horeeyay dalka laga helay. Ugu dambeyntiina, ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland ee BSF
ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay howlgallo qorsheysan ka sameeyeen deegaanada ay ka mid tahay Buuley oo ka tirsan gobolka Bari ee maamulkaas. Howlgalka ciidamada Puntland ayaa waxa ujeedkiisu ahaa mid looga hortagayay miinooyin Al-shabaab ay ku aaseen xilliyada qaarna ay geliyeen wadooyinka u dhaxeeya deegaanada kala ah Sukure, Bilqadar iyo Galgala. Taliska ciidanka ee BSF oo la hadlay warbaahinta kana hadlay howlgalka ayaa sheegay in ciidamada ay macluumaad ka heleen dadka deegaanka howlgallada laga fuliyay, isla markaana ay doonayeen inay ka hortagaan falalka amni darrada ah ee halkaasi ka dhici karay. Sidoo kale ciidamada ayaa howlgallo kale oo amniga lagu xaqiijinayo ka sameeyay deegaanada Ceel Qaraar, Dameer iyo Ceel Cadayle iyo Xumur ee Buuraha Calmadow ee gobolka Bari, isla markaana deegaanadaasi ka tirsan halkaas oo ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan Al-shabaab iyo Daacish. Inta badan ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa howlgallo kala duwan ka sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Bari, waxa ayna ku soo qabteen xubno ka tirsan Al-shabaab iyo Daacish iyo sidoo kale hub. Aan dib idinkugu celiyo daawadayaal qaybaha kale ee barnaamijkeena Subax Wanaagsan. Axmed iyo Aamina.